ugu horeyn islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey in bashar lagu maamulo malaa'ig aan waxba ka dhacaynin oo suuban looguma talagelin waxaa loogu talagalay bini aadam khayr iyo sharba leh waxaana ka mid ah min tabiicati albashar mas'alati altanaasuc waalikhtilaaf bini aadamka qaab abuurkiisa waxaa ka mid ah inuu murmo ama iskhilaafo oo ay asal u tahay dabeecaadka bini aadamkee kala gedisan iyo hunguriga adduunye oo uu qabo oo aan mid quraba dunida tani ku filayn haddii keligii la siiyo dunidaan midka keliya ku filayn haddii 6 milyan oo qof ama 6 bilyan oo qof ay ka dhaxayso waad garan kartaa xuduudda ama hunguriga bini aadamka iyo suu isaga hor imanayo ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa masaa-ishatan muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo dilku inuu basharka asal ku yahay watlu calayhim naba'a bnay aadama id qaraba qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar ilaahay wuxuu ka warramayaa qiso dhan baa laynoo soo guuriyey oo ka mid ah reer nebi aadam asalkoodii ilmo nebi aadam inay isqabteen oo isdileen waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu soo guurinayaa walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk basharku inaanay ka zuulaynin inay iskhilaafaan amase murmaan cid alla u naxariista mooyaane subxaanahu wa tacaala iyadoo tamaca bini aadamku uu marka hore noocaa u salaysan yahay oo ah runtii nuqadka loogu talagalay in basharka lagu itixaamo ayaa waxaa kaloo haddana ka mid ah oo sii kordhiya marka ay dadku wax wada yeeshaanee wax isku darsadaan ha noqoto xaas nin iyo gabadh wax isku darsaday ha noqoto shuraako dad adduun iyo xoola isku darsaday ha noqoto dowladnimo dad dowlad iyo in ka ballaadhan isku darsaday wax la doonayo kasta oo la isku darsadaa iyana waxay abuuraan muranka waana ilaahay subxaanahu wa tacaala tuu qur-aanka ku leeyahay waina kaiira min alkhulaطaa'i layabغi bacduhum calى bacd ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala in badan oo wax isku darsata waa isku xadgudbaan badhba badhka kale ay ku xadgudbaan ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat waqaliila ma hum kuwa iimaanka laga heliya camalka saalixa mooyaane kuwaasina waa yaryiinba alla leeyahay subxaanahu wa tacaala waa dad yar taa macnaheed waxa weeyaan muranka iyo dooda iyo isqabsigu dowladuu ka dhexdhici karaa muranka iyo dooda iyo isqabsigu shucuub wada nool oo dowlad qura ku wada hoos jiruu ka dhici karaa muranka iyo isqabsigu qabaa'il buu ka dhexdhici karaa deegaan iyo daaq iyo biyo isku haya muranka iyo isqabsigu xaafad buu ka dhici karaa wuxuu ka dhici karaa shirkad dad wada leh hanti in haysata wuxuu ka dhici karaa guri qura aabiyo hooyo wada nool oo guri qura ku wada nool sidaa awgeed baa aynu leenahay horta muranku waa mas'ale qadiima oo basharka noloshiisa ka mid ah nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa qowliga iyo tacamaligaaba in badan buu dadka muslimiinta kala dardaarmaya inay iska ilaaliyaan muranka iyo dooda iyo isqabsiga iyo dilka oo uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga gadaashay gaalaha u noqonina buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam badhba badhka kale qoorta uu ka gurayo walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo aroortay sunnadiisa haddaynu eegno heshiisiin uu jamaacaad muslimiina heshiisiinayo sidii qisadan suurat alxujaraat ay ku soo degtay ninkii la odhan jiray ibnu ubay markii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabaddu intii soo mareen uu sheegay boodhkiina xaggaa noogala durka uu yidhi ee bacda saxaaba ay tilmaameen warma nebi maxamed baad saa ku leedahay dabeetana dadkii ag fadhiyay muranku uu ka dhacay ilaa xad ay
ulaha iyo gacmaha isku dhufdhufteen oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka soo dejiyey. waxa uu nebigu axaadiistiisu ay tilmaamaysaa in loo sheegay reer Quba, masjidu Quba raggii degi jiray ilaahay qur-aanka ku ammaanay inay rag ka midii isqabteen xaafado ka mid oo isdhagxiyeen oo dabeetana nebigu ku yidhi saxaabadiisii ina keena aan dhex gal leh. waxaa axaadiista nebiga ka mid ah calayhi salaatu wasalaam isagoo family iyo guri dhexdhexaadinaya oo guri fog badaayay inantiisii iyo in adeerkii oo ishaya cali ibn abi aalib iyo faatimo oo muran dhex maray oo intuu guriga nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam uu faatimo yidhi mee ibnu cammik xaguu jiraa ay tidhi waa isqabanno waa kala cadhoonno uu iska tegey. dabeetana nebigu baadi doono uu yimi isagoo masaajidka hurda oo inta go-i dhinacu ka dhacay dhinaca boodh ku leh ou leeyahay qum ya abaturaab qum ya abaturaab buu nebigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam. axaadiis aan sheegaya dhammaantood bukhaari ku yaallay, dhammaantood waa axaadiis bukhaari ku soo aroortay. sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala diin buu inoo soo dejiyey loogu talagalay inay ina walaalayso oo dadku walaalo noqdo oo muranku yaraado. islaamku maadaama bashar loo soo dejiyey wixii ay u baahnaayeen oo dhan baa ilaahay soo dejiyey. islaaxa ama lajaanta islaaxa samaysaa waa lajaan ilitfaa oo kale, waa difaac ilmadani qoladan dabdamiska. laakiin dabdamiska waxbaa ka horeeya intaan dabku meesha ka dhicin. dabka securities tiro badan baa loo sameeyey oo guriga marka la dhisayo dhismaha marka la samaynayo wax badan oo security la sameeyaa oo ku saabsiisan dabka iyo sidii looga taxadiri lahaa. qalabka la adeegsanayo waxa la dhisayo intay flammable yihiin ama inta ay fire proof yihiin ayaa dowladdu controlsha. wax badan oo controla marka la maro kadib ayaa la yidhaahdaa haddiiba uu dhaco waxaasoo dhan marka lasoo dhaafo haddiiba dab dhaco see loola dhaqmaya. markaasaa loo sameeyey difaac ilmadani, fire brigade qoladan dabka damisa ayaa loogu talagalay. idan lajaanti iyo islaaxu waa fire brigade, laakiin waxaa ka horeysa mujtamacu qaab dhismeeda inuu leeyahay iyo nolol inuu wadaago ah inaan dab ka dhicin marka horeba lagu talagalo sidii dabka kane aanu dhici lahayn. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku gallad sheeganaya dadka mu'miniinta quluubtooda inuu walaaleeyo isu keenay. wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana. waxaa xustaan baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala ilaahay nicmadiisa iyadoo nicamka ilaahayna siiyey tiro badan yihin oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahy wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. haddaa ilaahay nimcooyinkiisa tirisaan lama soo koobayo. haddana midhadh ka midabaa qur-aanku si gaara u tilmaamay. midhadh ka mida nicamkaasi ayaa qur-aanku haddana iyaga si gaara u tilmaamay oo nicma keligood lagu tilmaamay. waxaa ka mid ah islaamnimada iyo nicmo inay tahay. waayaadka qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramayo alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan. nicamka gaarka ilaahay qur-aanka ugu tilmaamay waxaa ka mida markaa nicmada walaalnimada iyo dadku qalbigoodu inuu isu hiloobo. waxaa rabbi ugu gallad sheegtay saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaa xasuusataan ilaahay nicmadii id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum markaa ahaydeen col oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiyadiina uu walaaleeyey ama se uu isku kin soo dhoweeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale nebiga wuxuu ku tilmaamayaa waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim baa ilahay leeyay. dunida waxa yaalloo dhaqaala haddaad dadka siin lahayd isumaad keeni karteen baa rabbi leeyay subxaanahu wa tacaala. dadka badh baa u haysta inuu dhaqaaluhu dadka walaaleeyo haddii xoolo la helo ma aha, sax maaha. basharku quluubtiisu inay walaalowdo wax badan oo kale uu u baahan yahay. culammadan ka warranta cilmiga bulshada
waxay dhahaan bulsho kastaaba waxaa la arkaa dhibteedu inay yartay maamulkeeduna uu fududaan karo kullama ay tahay homogeneous group waxay dhahdaan dad kala gadisnaantu ku yar tahay oo wax kasta wadaaga laakiin waxaa la arkayaa dad wax kasta wadaago haddana murankoodii la xalili kari lahaye saa bulshada Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin dad aan race isku kala gadisnayn dad aan kala lahayn color ee midab qura wada madow leh asmar wada ah dad aan af ku kala gadisnayn oo af qura wada leh dad aan ku kala gadisnayn maxaa la yiraahdaa dhaqan oo culture qura wada leh dad aan ku kala gadisnayn diin oo diin qura wada aaminsan dad aan xataa madaahibta diiniga ku kala gadisnayn oo madhab Shaafici la yiraahdo wada haysta haddana dunida waa kuwa fitir faatir tobanba meel ka dhacday tobankii haddana meel wada joogay murankooda loo taaglayay tobankiina Cape Town maanta jooga waxa laga yaabaa in murankiina la xalili kari waayo iyadoo homogeneous groupnimadii ay wataan idan khalalku hadduu galo umamka inay wax badan wadaagaan waxa qariba wax yar oo la islaaxin kari waayo wax yar oo difference oo jira oo u dhaxeeya oo la hagaajin kari waayo umamka dacfigooda qaabka looga faa'iideystana duwalka waaweyn iyo dadka gumaysta qaacidada caamka la yaqaan waxa weeyaan dadka burburi waad xukumi karaysaa divide and rule farq tasud wa qaacidadi fir'aun وجعل بعضهم شيعا كوحو كدغي markaasa waxa timi yastadcifu طائفة منهم taftiitin lagu sameeyo عالم الإسلامي markii gumaysigu ku bilaabmay waxa lagu sameeyay taftiit dawlad yar oo waliya 10 qadad oo qofba inay meel degaan koox yarba in sheekh loo sameeyay koox yarba in hogaamiyay oday horkacay taftiitku wuxuu keenaa umamka quwadooda oo la kala tirsiyo waxaynu u baahanay markaa inaynu dib u noqono muslimiin baynu nahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam jiil saxaaba abu soo saaray jiilkaasi sifa ilaahay ku tilmaamay muhammadun rasuulullah ba ilaahay nabi maxamed waa la rasuulki isaga sifadiisu wata walladina ma'ah kuwa nabi maxamed la socday ilaahay muxuu ku sifeeyay markaa إلهي كوا وحكسف يصف الله قدقي الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدح صفاء إلهي سبحانه وتعالى صدح ذا الصفاء عنك صحابة يكوها يوم حويان إيجا دحدو ذا حديد كودا حينيا إيجا يعد كلايس هيان قال ذي حرب قايد حديد كودا حينيا iyaga iyo rabbigood xidhiidhka u dhaxaynaya ilaahay wuxuu iyaga iyo cid ay sayaan gaala xidhiidhka u dhaxeeya wa ashidaa'un 'ala al-kuffar wa rag wax iska dhiciya ba ilaahay yiri dadadag markay joogto goob dagaal wax iska dhiciya miicmiicda aqoon weeyaan sifadooda laakiin markay iyaga dhexdooda tay ilaahay wuxuu ku sifeynayay in dad ar-ruhamaa'un baynahum وضد يجو السدبعة أو السنة حريسته نحرس ميل هدي شرته وضد نولان شيء شرية وضد نولان كرة مركي علاقة ذا يتربي قد كده حيسان نقطنا وتراهم ركعا سجدا وهذا كيسا يجو ركوع سن أو سجود سن أو ربي بريئة مسلمين تمانت واحد مودا صفات كان كيمت قاطع إنه لبدا كرة توريون waxaad arkaysaa mid rukco sujada oo hadana muslimka looga taaglayo naxariistu ka tagtay waxaad arkaysaa mid naxariis badan oo gaal looga taaglayo daba rooraya waxaad arkaysaa mid gaalka ku adadag oo iska rabaya oo muslimkii looga taaglayo naxariisti ka guurtay yaani sifaadkii inay jamciyaan saxaabadu lahayd bay awoodi kari waayeen muslimkan dambe inay sifaadka jamciyaan oo wada yeeshaan bay awoodi kari waayeen walidaalika islaamku wuxuu ina farayaa قبل الإصلاح انتين نقارن إنه ترترنه
wax kasta oo xagasho keenaya bulshada maxaa isku diraya maxaa keensanaya inay isdilaan maxaa keensanaya inay isqabsadaan hadday guri tahay hadday qabiil tahay hadday dawlad tahay hadday mujtamac tahay hadday ka yartay hadday ka weyntay maxaa keenaya inay isqabtaan maxaase keenaya inay walaaloobaan waxa allaaliya wixii keenaya in la kala tago rabbi wuu nahiyey waa laynaga xaaraam yeelay waxa allaaliya wixii keenaya in la walaaloobana waa layna faray wujuuban aw nadba iyadoo ama waajiba ama sunnaa baa layna faray waxaa layna faray oo laynaga mamnuucay inaynu kala tagno inaynu isdillo inaynu ismaagno inaynu isxamanno inaynu iscayno inaynu isyasno inaynu isfogoyno inaynu naanays isugu yeedhno inaynu kuwaasoo dhan maxaa loo manciyey waa meesha nabarku ka bilaabmo waxaa layna faray inaynu isxidhiidhinno inaynu isa salaanno inaynu isa sooriyeyno inaynu ilaahay dartiisu jeclaanno inaynu isa soo booqanno inaynu waajibaad isku leenay keenna hindhisa inaynu alxamdu lilah markuu yidhaahdo aynu maxay tashmiit ilcaatis u samayno inaynu keenna buka soo booqanno inaynu jinaasadeenna raacno in haddii laynooga yeedho meel aroos ama casuumad inaad walaal ka aqbashid kullu daalika aadaabtaasoo dhammi waxa ay sheegaysaa waa in walaalnimada iyo xidhiidhku bato walaalnimada idan sharcigu marka hore wuxuu ina farayaa wixii walaalnimo xoojinayay waxay isu hadiyeeya baa la yidhi tahaadu waayo taxaabu baa nebigu leeyahay waa is jeclaanaysaan waxaa layna leeyahay xuquuqdaasoo dhammi waa xuquuq qof kasta oo muslimi qofka kale muslimkaa uu ku leeyahay haddaynu xuquuqdaa ilaalino macnaheedu waxa weeyaan xidhiidhka inoo dhaxaynayaa tiro badanaya cagsigeeda haddaynu iska reebno oo ah inaynu isxamanno inaynu iscayno yaa ayuha aladiina aamanuu fii suurati alxujaraat aayaadka tirada badan leh bacda aayaati alqitaal iyo islaaxa ka dambeeya inama almu'minuuna ikhwa marka ilaahay uu soo warramo war daa'ifo muslimiina hadday isdishaan waa dad walaale ee hagaajiya waxa laga dambaysiiyey intaasoo aayadood oo ka warramaya in la isdile maxaa keenaya waxaa keensanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa'u min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhunna waxaa keensanaya walaa tanaabazuu bilalqaabi bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan waxaa keensanaya laa yaqtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi mayta waxaa keensanaya tajasus inaanu jirin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramay walaala haystale in la islaaxiyo waxaa laga warramay manhiyaad tiro badan oo ah waxa keensanaya inaynu marka horeba isdillo haddaynan isyasin qofka mu'minkaa shar waxa ugu filan baa la yidhi walaalkiiya u xaqiro uu yaso haddaynan il iyo aftoona isku xamanin hamzi iyo lamzi hamaazin binamiim mashaa'in binamiim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamaya weylu likulli humazatin lumaza qof kastaoo hamaaza oo lumaza waa mid af wax ku caayiya ishaaro iyo mid carabka wax ku caaya waa mamnuuc sukhriyo dhammaanteed jees-jees iyo liide inaad walaalkaa liiddo xamasho namiimnimo iyo isku dirdir jannada ma gala baa la yidhi maxay namaama wqataat nusuustaa tirada badan leh qadfi iyo buhtaan in la sameeyo sibaabu lmu'min in lagu tilmaamay inuu yahay maxay fusuuq inuu yahay waxaasoo dhammi waxay sheegayaan muran in la yareeyo waa precautionskii hore waa wixii koowaad ee abuurayay bulshadu inaan xumuhu dhex marin waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ilaahay wuxuu yidhi addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa ha yidhaahdaan weedh kasta ta fiicanoo qura maaha ta sii fiican ha yidhaahdaan waayo maxaa laynoo leeyahay ta sii fiican ha yidhaahdaan haddii walaalkaa markaad la hadlayso kelimaadka aad doorato
oo ereyga fiican daayo ereyga ka sii fiican aad isticmaasho waxaa yaraanaya murankiina waayo waxaad noqonaysaa qof walaalkay ixtiraamay ama haddaad ku bilowdo waan jareexaynayaa inaad tidhaahdo saa soomaalida jareexadu waa maxay waa tajriixi dee haddaad ku bilowdo waan duraya waan ka yara cadhaysiinayaa hebel oo ama reerkooda aada ceebo ka sheegto ama isaga aada caydo ama aada yesto ama aada maagto ama aada naanaysa ugu yeedho ama aada soomaalidu waxay u moodaa waxaas inuu yahay wax kaftana laakiin kaftan ma aha nebigu wuu kaftami jiray laakiin waxaan xaq ahayn ma odhan jirin bulshada dagaalkeedu haddaan af xumaanin adin ma xumaado asalku waxa weeya wargaaladaa la noosheen maaragteen markay wada dhaqmayaan wax kastoo ka dhaxeeya hadal cid isku mudaysa arki maysid walaalkay hadal ku mudda raganimo maaha cid hadal isku mudaysa arki maysid xataa af soomaaliga waxaad moodaa innagu dhaqanka soomaaliga waa dhaqan adag nin soomaaliyeed baa maalin wuxuu igu yidhi waa nin pilot dowladdii soomaaliyeed u dirtay Arizona joogay dabeetana meeshii wax lagu dhiganayay buu yidhi oo pilotnimo lagu baranayo ayaan kaatiin yaroo gabadh iyo inan islaan iyo inan ay dhashay haysataan maadna aniga nin kaloo Soomaaliya weeyaan buu yidhi kaafiga iyo waxba laga iibsaday waa ka iibsanaa marka inantii iyo islaantan meesha jooga cadhay liitaan maalintii dambe islaantii iyo dhow waxay igu tiri buu yidhi kaale maxaa afkiina lagu yidhaahdaa bay igu tiri buu yidhi please waxaan idhi buu yidhi kuma jirto please ma male waan fikiray buu yidhi wixii aan la odhanay min fadlaki bilixsaanaki waxaas waa carabi buu yidhi waan baadhay af soomaaligiiyo ereyga please ba waan waayey buu yidhi wax la idhaahdo dabeetana waxaan idhi buu yidhi kuma jirtoba markaasee waxay igu tiri buu yidhi haddaan gartay maxaa idiin diiday dadka kale markuu wax iibsanayo please one cup of tea ayaa la yidhaahdaa idinku koob shaha keen awaamirtana wadaan maxaa idiin diiday inaa kelmad fiican tidhaahdaan yani ilaa xad nin soomaaliyeed intuu fakero afkiisaba uu ka waayo wax biliis lagu yidhaahdo jaxarnimada iyo hadalka engegan iyo qallafku halku joogo qallafku raganimo maaha inaad qallafsanaato oo qof adag noqota raganimo maaha saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan waxaad addoommahayga ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi hadalka kiisa wanaagsan ha dhahaan ina ashayطaana yanzaqu baynahum ina ashayطaana kaana lilinsaani caduwan mubiina ilaahay wuxuu leeyahay waayo maxaa loo leeyahay hadalka ka fiican ha dhahaan waxaa lagu tacliilinayaa waayo shayطaanku dhexdooda inuu fasaad ridaa buu doonaya inuu isku diraa buu doonaya shayطaanna insaanka cadownimadiisu ay caddahay buu yahay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala idan kelimaadkan adigu aad kaftanka ka dhigayso ayaa ah waxaan dadka mashriq iyo maqribba kala geeyey waxaan kala durkiyey waa qabiilkan aad yasayso ama reerkan aad maagayso ama hadalkan aad qofka ku mudayso ama weedhahan wada adag ayaa waxa qof kala fogeynaya nebigu wuxuu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ee qofka kale muslimka ah hadal xunna yuu ku odhanin bale wuxuu nebigu gaadhsiiyey in la yidhaahdo wejiga fiicani wejiga bashaashka ahi alwajhi طaliq ayaa sadaqa ah baa la yidhi adigoo un afka yaro buurayo caraysan inaad walaalkaa ka hor imani xataa haddaad iskaba caraysanto oo walaalka aad la kulanto inaad nawcun min alhashaasha inaad nawcun min basha wahashad ay odhan jireen inaad muujiso wax walaalkaa muujinaya inaad ku faraxsantay inaad kulanteen aanu kaa dareemin inaad caraysan tahay iyo inaad dudaysatoona hub iyo waxaa in la isuba qaado ama nabar la isku dhuftana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy laa yushiiru axadukum calaa akhiihi silaax midkiin walaalkiin yuu warankiisa ku fiiqinba nabarkiisa xaggiisa xataa haddaad waran sidato xagga hore ha u qabanin baa la yidhi oo sidaa ha u qaadanin xagga dadka uu fiiqayo uu mudayo waayo in shayطaan kaa fakiyaba uu qof muslima ku dhacaa la arkaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay qadaayaadkan marka aan tilmaamayo dadku way yaraysteen laakiin waa dunuub waaweyn nusuusta qur-aanka iyo xadiidka marka la eego waa kabaa'ir xan iyo namiimnimo iyo yasid iyo sukhriye iyo waa kabaa'ir qur-aanku radiyo nahyiyey waa dunuub waaweyn
dunuubtaasi hadday dhallinyarada iyo waayeelka iyo dadka dhexdooda ka baxdo waxaynu noqon karnaa bulsho isu soo hilowda oo aan dhibi dhexdeeda oolin, bulsho walaaloobi karta oo aan hadalka isku mudaynin, bulsho wadaagi karta nolosha dhammaanteed. sidaa ogeed inta aanan islaaxa ka warramin iyo fadligiisa iyo qur-aanka iyo axaadiista ku soo arooray waxaan rabaa inaan idin tilmaamo war fasaadu daatulbeynku inay xumaataa waxan yaryarba xumeeya. dadku inuu walaaloobana afcaasha kooban ee waxisasiinta leh ee ismaamuuska leh ee isa soo dhoweynta leh ee isa salaanka leh ee xidhiidhka samaynaya ayaa keena qofka bini aadamka in qalbigiisu furmo. bini aadamku dhagax maaha, qulubta bini aadamku wax iska xajaro oo aan caqliga in wax loo sheega mayo ana cawaatiftiisu isbedelin maaha. cawaatifta bini aadamku wax fudud baa cadhaysiiya, farxiya, kiciya, jeclaysiiya, necbaysiiya. qofka soomaaliga waxaad moodaa inaanu insaanka markaa si wanaagsan u fahmin. insaanka haddaad si fiican u fahamto waxay keensanaysaa cawaatiftiisa iyo mashaacirta dareemadiisa inaad ilaaliso. walaalka haddaad dareenkiisa ilaaliso weligaa walaalba ahaanaysaa. bulshadu hadday tiraa wallahi ninkaasi waa nin muxtarama oo dadka macaayo, wax weyn weeyaan. waa qof aan dadka hadalka ku dhimin. waxaad moodaa shirarka markaynu isugu nimaadeen la yidhaahdo ha la hadlo, in badan oo inaga mid a hadalkoodu waxa weeyaan reer hebel waxaan ku sameeyey maanta ma arkaysa inuu la yidhaahdo saan hadallada ugu mudmudo iyo waxaan sameeyey, halkay ka ahaan lahayd inuu isku dayo dadka inuu isu soo hiloobo oo boogaha jira inuu asturo oo wax dhadhabo oo wax hagaajiyo, ayuu isna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ma ku muday. raganimo markaa waxay inoo noqotay inaad ninka kale ka cadhaysiiso. raganimo waxay inoo noqotay inaad reerka kale muddo ama maagtid ama ka xanaajisid. haddaba islaamka haddiiba ay dhacdo maadaama bini aadam la yahay, qof cadhooda la waayi maayo, qof sahwiyey la waayi maayo, mid qafla ay ku dhacday la waayi maayo. laakiin marka ay taasi dhacdo waxaa layna amray haddana wax kale oo khusuumada ilaaliya oo ah inaynu baranno dulqaadka iyo cafwiga iyo saamaxadda inaynu baranno. wixii way dhaceen ficlan, wuu ku caayay, wuu ku maagay, waxbuu kaa sheegay, ma qasabba inaad response bixisaa? maya. ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu ammaanay janno carduha asamaawaat walard uciddat lilmuttaqiin. yaa rabbi ka warran janno cirka iyo dhulka cardigeeda ballaadhayo loogu talagalay inta ah. jannada yaa leh ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kuwa lehe muttaqiinta la sheegaya waxa weeyaan waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin. ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka jannada tan lihi inay yihiin kuwa cadhadooda qarsan kara. ficlan waa lagugu yidhi wax kaa cadhaysiiya, ma qasabba inaad cadhada ka jawaabtaa? ma qasabba inaad feertantaa? ninnimadu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war ninka xooggaa ma taqaanin, ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin ee xooggan shadiidka ah. dee waxay yidhaahdeen waa ninka rag markay isgalaan dhulka ku hubsada, kaasaa adee ninka xooggan. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa maaha. ninka xooggane la sheegaya waa ninka markuu cadhoodo naftiisa hayn kara buu nebigu yidhi, hanan kara. xooggu maaha sida dibiga inaad muruqya kuusanaato oo aad garan yaroo gacmo gaaban ku hoosato, kaas ma aha, wax badan samayn mayso kaasi. xoogga dhabtii waxa weeyaan inaad noqoto qof miisaaman oo isagoo cadhaysan erayada afkiisa ka soo baxaya ficilkiisa controli karo, caqliga uu isticmaali karo. soomaaligu hadduu cadhoodo dhiishiyo dherigaba goortuu jabiyo wax walba baabi'iyo ayuu leeyahay meel baan ka dhacaya ninka hana la wada hadashiyo. oo maxaa milka dhaca inta leg maxaa keenayay? waxay ahayd inaad isxejin karto. ninnimadu taasay ahayd. waxaa layna faray markaa waalkaadimiina alghayd
waalcaafiina can innaas kuwa dadka cafiya mararka qaarkood cadhada intaad dibirtaa baad iska tegi kartaa waxaa ka sii qurux badan inaad iska cafidaba waxba aanad dibirsanaanin ay kaa degto waxaa ka sii khayr badan inaad weliba wanaag u samayso oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qofkii xumeeyey wanaag u sameeya idfac bilatii hiya axsan maxaa la yidhi faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaannahu waliyun xamiim kii xumaa kugu sameeyey haddaad haddana u abaalguddo oo aad wanaag adigu siiso wuxuu filayey de inaad ka aargudato waayo wuxuu dareensanaa inuu godob ku jiro laakiin haddaad godobtii intaad cafido weliba soo dhawayso o wax siiso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ninkaa iyo adigu waxaa isku noqonaysaan kaanahu waliyun xamiim sadiiqaaga dhow ee aan cid kaa xigtaa jirin ayuu soo baxaya islaamku intaasoo masale ah markuu tilmaamay oo laynagu booriyey ayaa waxaa la tilmaamay kadib inaynu debdemiska isticmaalno markii cafiskaa laynagu booriyey cafiskani xad buu gaadhsiisay uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta jimcada mise maalinta khamiista iyo isniinta buu xadiidku ahaa ayaa ilaahay ummadda loo cardiyaa acmaashoodii toddobaadkan wixii ay sameeyeen isniin kasta iyo khamiis kasta xagga rabbi baa loo bandhigaa walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa labadan maalmood inuu soomo oo isniinaha iyo khamiisaha si camalkiisa loo rafciyo isagoo sooman laakiin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman haddana labada muslimiinta ee ishaysta ee la kala fujin kari waayey haddii isniinta iyo khamiistii markaa camalkooda rabbi loo cardiyo loo bandhigo in ilaahay yidhaahdo labadaa arrinkooda dib u dhiga camalkooda oo dhan celiya xataa yastalixa andiruu haadayni xataa yastalixa labadan ha la joojiyo ilaa intay ka heshiinayaan maxaad u malaynaysaa haddii acmaashaadii xataa saalix ahayd ee soonka iyo salaadii iyo hadday xagga rabbiba tegi waayaan u meel dhexe lagugu soo celiyo liajli inaad la heshiiso walaalkaaga kale muslimka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa man hajara akhaahu qofka walaalkaaga muslimkaa lama ogola 3 maalmood ka badan inaad ka hijrooto 3 maalmood waa muddo cadhada ku jabto laakiin ka badan haddaad hijrooto waxaa la yidhi maxay fa huwa ka safki dami waxay la mid tahay sidii aad dhiiggiisa daadisay masaa'ilka kan waa tashriicaad tiro badan leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey laynooguna jideeyey inaynu ku ilaalino walaalnimadeenna iyo dadnimadeenna haddiise dhibi ay dhacdo laba isqabta oo nin iyo gabadhii ay ka dhex dhacdo kuwa shuraako ah oo adduun isku haya ay ka dhex dhacdo kuwo qabiil isku haya ay ka dhex dhacdo kuwa dowlada isku hayo muslima ay ka dhex dhacdo daa'ifaad ay ka dhex dhacdo ilaahay wuxuu ina faray subxaanahu wa tacaala inaynu walaalaheen islaax heshiisiinno fii suurati alanfaal rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa saxaabadii nebi maxamed basharka khafladu mararka qaarkood waa ku dhacda iyagoo ilaahay rasuulkii maciisa ah iyagoo soo hijroodo oo maka adduun iyo xoolo waxay lahaayeen kaga yimi oo u hijrooday ilaahay dartii iyagoo naf iyo maalba islaamnimo u huray oo furan dagaal jooga beder taagan iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda uu gaal ku jabiyey iyaga uu nebi moxamed ilaahay ka baryaya uu leeya ilaahayow sala allahu calayh waaalih wasalam kooxdaas maanta hadday jabto dunida dib laguuga caabudi maayo oo islaamku wuu dabar go-ayaa kuwii caynkaa ahaa ee dirirayay ee ilaahay dartii u taagnaa ayaa waxoogaa xurgufi dhex marta oo ku saabsan haniimadii lasoo qabsaday ragga badh haniimadii bay ururiyeen xoolihii gaaladu ay seetay ragga badhna
gaaladii la jabiyey bay raacdadooda ku jireen waa sii eriyayeen ragga badhna nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan meel kale looga soo gelin bay ilaalinayeen oo gaadh ka hayeen dabeetana hantidii baa waxoogaa murani ka dhacay qoladii urursatay inay tidhahdo dee annagaa dhacsanoo qaadanay qoladii erida ay tidhahdo miyaa dhicin kari lahaydeen haddaanan annagu ragga sii wadin qoladana ay tidhaahdo annaba nebigaanu mashquul ku ahayn inaanu ilaalinee xole waa guran karaynay nimankii magaca iyo maamuuska islaamka ku ahaa ee ahlu badar ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ammaantoodii iyo waxay dhigeen iyo waxay faleen intaan laga warramin waxaa laga warramay kayskaa yara fudud ee adduunka ku saabsisan suurat alanfaal oo qisadii badar ka warramaysa ilaahay wuxuu ku bilaabayaa yasaluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi wاrasuul laakiin ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ku xigsiiyey waxaa lagu xigsiiyey faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum in kuntum muuminiin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waar alla ka cabsada oo hagaajiya waaslixuu daata baynikum waxaa isku haysaan dhexdiinna kaa kow ha laga bilaabo shaqada ha la tirtira baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa walaalo iyagoo isqabtay ayaan haddana walaalnimada islaamigii zuulin dabeetana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala war waxaa islaaxisaan walaaladin dhexdood faamligii iyo reerkii baa ilaahay wuxuu leeyay falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr ninkii iyo gabadhii isqabtay dembi dhexdooda maaha baa ilaahay leeyay hadday sulxi iyo heshiis sameeyaan heshiiskaa khayr badan baa ilaahay leeyay kala tagga iyo ishaysadka iyo kala laalaadka iyo talaaqa wuxoo dhan waxaa ka khayr badan heshiiska baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala inay heshiiyaan idan ayuha alikhwa haddiiba ay dhacdo inaynu muranno inaynu isqabanno waxaynu u baahanay inaynu haysanno lajaanta iyo dadka waayeelka iyo culammada iyo waxgaradku inay u qumaan inay ahaadaan debdemiskii difaaci ilmadanigii meeshii xariq ka baxo ee dab ka bidhaamo ciddii bakhtiin lahayd inay noqdaan waxaana uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamayaa shaqadaasi inay ka khayr badan tahay shaqooyin badan oo kale soonkii sunnada ahaa salaatuleylyadii iyo wixii sunan la tukanayay wax oo dhan waxaa ka khayr badan dad walaaloo la heshiisiiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay alaa ukhbirukum biafdala min darajati الsiyaami wالsalaati wالsadaqa ma idinka warramaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam wax ka fadli badan darajada soonka iyo salaada iyo sadaqada waa saddex masalo asalkoodu arkaanulislaamka uu ka mid yahay soon salaad iyo sadaqa zaka waa saddex asalkoodu uu ka mid yahay saddexdaasi shuraax badani waxay leeyihin waa saddexdaas sunankoodii baa la tilmaamaya ayan kaanat nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay soon iyo salaad iyo sadaqo wax ka fadli badan ma sheegaa saxaabadii waxay dhaheen bala ilaahay rasuulkiisiiyow haa ka waran qaala islaaxu daati lbayn buu nebigu yidhi waar dadka walaalaha ah oo aad dhexdooda islaaxisaan dadka walaalo aad dhexdooda islaaxisaan ayaa ka khayr badan waayo nebigu wuxuu leeyahy fasaadu daati lbayn alxaaliqa fasaadu daati lbayn dadka dhexdooda xumaata xidhiidhka albaynku waa kalimaadka mutadaadka fi luga alcarabiya ah dadka dhexdooda oo xidhiidhkooda uu xumaado fasaado hee waa xiirta buu nebigu yidhi xadiidkaasi tirmidi abi daawuud baa warinaya sheekh alalbanina waa saxiix buu leeyahy xadiid kale uu sheekh alalbani xasan ligayri ku tilmaamaya waxaa ku soo aroortay idinma lihi timahay xiirtaaye waxaan idin leeyahay taxliqu ddiin albagiida waxay xiirtaa diinka
qofka diintiisa colaaddu markay dhacdo shaydaan baa dee xidhxidha waa caruus waa wakhtigiisii waa wakhtiguu munaasabadda helayay wax waliba u fududaayeen waa wakhtiguu xisbigiisa tiro badinayay ahlu naarku waa goortu tiro bato jamaacadu naarta u adeegsanaya waa goorta ay tiro badato sida daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam diintay xiirtaa khilaafku oo marka khilaafku dhaco marar badan dadka waxaa kor mara inta sharurlowga ah oo inta khayrlowga ah kelmadooda way hoos martaa inaga dhiciyada kooxda ah ayaa kelmadooda kor martaa dabeetana waxay noqotaa mid caabida iyo mid sheekha iyo mid maskiina iyo mid walba in la dilo waxay keensataa in xantu badato reer hebel iyo wax ka sheegood iyo beladood iyo wax la sheegayo waxa badata in cayda iyo aflagaadada iyo gabayga iyo qurunka la isu tirinaya tiro bataan waxaa bata iyo sida iyo maagitaanka inuu bato waxaa bata dhiigga muslimka iyo daadistiisu inay badato waxaa bata wixii shaydaan ku farxayo dhamme idan diinta xiiranta waxaa yaraada meelihii lagu cibaadaysanayay iyo khayrka iyo iskaalmaysiga iyo waxisasiinta iyo waxbixinta iyo diyaafada iyo walaalnimada wixii khayrku ku jiro dhamme wuu nuqsaamaa wixii sharku ku jiro dhammina wuu koraa oo kobcaa taa macnaheedu waxa weeyaan diintaa tirtiranta dadku mar kasta oo muranka iyo khilaafku uu dhex galo diintooda way yaraataa sidaa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam waa darajo ka khayr badan soon iyo salaad iyo sadaqaba idan waxgaradka iyo waayeelka iyo ahlulcilmiga iyo salaatiinta iyo qaadada ummadu waa inay heegan u ahaadaan inay difaac madani noqdaan inay dabka damin karaan waa inaanay heegan u noqonin inay iyagu huriyaan ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحلي والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا والرواية أنت صحيحة هين لكن حسن لغيرها نبي وحلي عليه الصلاة والسلام إله النفتيد وقعنتي سكوتشرتان كل أرطيه جنة قالي ما يساننا إسلام أنا إيمان ليدك هلا مو يعني إيماني إسلامني من مجري سينا استعلاتان مو يعني warma idin tusiyaa waxaa isku jeclaanaysaan afshu salaam buu nabigu yidhi war salaanta badiya dadka walaali inaysa salaamaan meesha iskaga soo horbaxaanba waa isjeclaanaysaan waar idinka iyo baan idin kala digayaa nacaybka buu nabigu leeyahy waayo nacaybku iyo colaaddu iyo shaxnaagu hiya alxaaliqa buu nabigu tilmaamayaa iyadaa xiirta idin malihi timahay xiirtaaye diintay xiirtaa baan idin leeyahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiista ka asaxday inoogu tilmaamaya sheekhaynku warinayaan qofka mu'minka ah kulla salaama xubin kasta qofka mu'minka in sadaqa lagu leeyahy maalin kastoo cadceedi soo baxdo sadaqaadka waxaa ka mid a markaasi tacdil bayna itnayni sadaqa laba walaalahaaya inaad dhexdooda cadaaladu samayso islaaxiso waa sadaqa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa uu ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamay waxyaabihii shareecada mamnuuca ku ahaa ee faqa iyo kolba in meel la istaago la faqa iyo waxaasi waxyaabaha banneeye ee khayrka ah waxaa ka mid ah laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa aw macruufin aw islaaxin bayna annaas baa ilaahay leeyay faqa tirada badan liyo shirshirka khayr kuma jira baa ilaahay yidhi inuu yahay mooyaane mid waxbixin iyo sadaqa la isugu sheegayo mid wanaag iyo khayr kale la isku farayo ama mid dadka dhexdooda lagu islaaxinayo ayuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala waman yafcal dalika ibtigaaa wajhi illaah ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala qofka kan u sameeya islaaxinta tan isagoo raadacaynaya ilaahay wejigii dartii u sameeya ajar weyn baanu kuwaa siinaynaa baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala waa qur-aan rabbi soo dejiyey ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ومن أعظم البر والتقوى أنا وحكمده وحدتك مسلمين تعلقوا إصلاحنا. أخوتي في العقيدة، هل أنا لبكستو مسلمة إصلاحين تود وحاو النبي عليه الصلاة والسلام حتى بنيي بنتي ميل والبا ممنوعة كواهي وحلا يدي way ku bannaan tahay laba muslima marka la kala islaaxinayo warbeeri ku yara jirto islaaxayna tiraahdo oo مثلا labadii nin aad ku dhex jirtay ba wuxuu ku yiri muxuu arrinka ka sheegay markaas aad tiri khayr buu ka sheegay khayr uu mooyana wax kale muu rabin ninka cidan cidii ay sahayeen ayaad war uga keentay aad leedahay niyo ninkii hebel ah wuxuu rabaa in la idin dhexdhexaadiyo soo cidana ku soo farin waxaad uga dan leedahay inaad khayr sheegto runta dirirta kordhisa namimnimada iyadu ka tirsantay walow aad saadiq tahay war run oo qolada kale iyagoo laha wallahi nimankaas niman xun weeyaan iska celinaa baad soo qaaday waxaad tiri qoladii reer hebel baan ku soo maro waxay lahaayeen nimankaas waa niman xun iska celino run baad sheegaysaa laakiin namimiyatay ma runta naarta lagu galaa waa run oo waad soo martay iyagoo sidaa sheegaya laakiin hada dan kale kamaad lahayn ilaa liifsaad الnaas mooyaane namimnimaduna waa war dadka lagu fasaadinaya haddaad been abuurato waa buhtaan iyadu waxaan jirin haddaad sheegto waa buhtaannimo laakiin namimnimada rasmiga ahi waa war saxa laakiin danta aad ka lahayd ay tahay inaad dabkan huriso danta aad ka lahayd kaas weeyaan warku waa sax idan markaasi runta waxaa ka fiican beenta islaaxaaba ka fiican ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كي الله وحليه ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا بين علمها كدتك دحدود إصلاحنا وحو كلا قاضي أو خير يهي خير شيء أما من باب التورية هو شيء علماء قارنا حتى تعد بيلين هذه خير كتير وبنات علماء قارنا من باب التورية بيت المامية وحكى استبها هاته إلهي سبحانه وتعالى إن بريه إن النقطة اسكدرك يا فساد تضدك رنتودو إن أنا خير هين صادق بان هو ورنا شيء وركا ولبا وحنا ادو سي شيغي قولada saxaafada qorta saxaafaadku waxay ilaabeen akhlaaqiyadkii ay lahaayeen ethics warkasta lama sheego dhacay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay kuwa dhagtoodii afkoodu isu daloosha inay kadaabiin tilmaayihiin waxaad aragtay waxaad maqasho kasta lagu ma warramo saxaafadu ma aha wax kasta inaad sheegto saxaafadu waa wixii khayr dadka ugu jira inaad sheegto wixii dadka islaaxinaya inaad sheegto inaad qof kasta qodqoddo si aad uga keento mid aad ku ifsaadiso warkiiso dhan ama dadka kale saxaafinimo maaha shabaabkan dambe waxaad moodaa ee webpageska qoray qolalkan dee fadhidaan kuwa fadhiyana weeyaan waxaana akhridaan oo dhan nin walba qolka kugu xigaa laga qoraa horta war meel weyn ka yimi ma web baa soo akhriyay Johannesburg baa laga qoray iyo Cape Town warkan aad akhrido ee reer hebel ka warramayo oo dhan halka laga qoray waxaan se ku leeyahay wax oo dhan isku soo dar wa aakhiro wax la idin weydiinayo kalimadu aakhiro qifuhum innahum mas'uulun baka dambaysa ilaahi wuxuu leeyahay joojiya dadka tuba waxba la weydiinaya maxaa la weydiinaya ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إيش يدكت يا قلبك وحي ودن والق ويدينيا آخر جواب ضيضيو هذا نمام نميمير رنشاقا هذا هيد ود عذاب جلسة وركاد ودي رنبها هذا هدون بدتك يسكت دريي والق عذاب جلية سيدة درادين يا أخوتي في العقيدة
maqaasidu inay lunta maaha. maqaasidu waa ahdaafta, waa gooliska, waa yoolka, waxa la raadinayo. waxa la raadacaynaya waxaa ka mid ah bulshada muslimka inay walaal ahaato. waa maqsad weyn. maqsadkaa weyn dariiqo kasta oo burburinaysa waa xaaraan shareecada. walow huwi shaar shareeco run baan sheegaya ina dheh iyo warka runtaa baan dadka gaadhsiinaya. walidaalik ayaa waxaan leenahay kadbiga islaax uu ku jiraa ka khayr badan sidqiga namiimnimada ay ku jirto. dadka islaaxa u kacayana waxa saaran inay ilaaliyaan shareecadu wixii ay fartay. ugu horeyn ilaahay dartii inay u samaynayaan. magac iyo maamuus iyo waxba toona adoon ku raadacayn, ilaahay dartii inaad u samayso. wixii ilaahay dartii loo sameeyaa way guulaystaan, ajarna waa laga helaa. waxaynu u baahannahay inaynu baranno sharcigu wuxuu ina baray oo ah salaamatu sadr, inaad isku daydo laabtaadu weligaa inay nadiif ahaato. nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa, waar warkiina hay keenina buu yidhi, waxaan rabaa inaan idinka dhinto anigoo laab wanaagsan. dum idinkuu yimaado ku yidhaahdo war baan hayaa, haye uu bilaabo halkaa lagaa xamanaya ka waradeenu iska joojidhe, kaa uma baahni. waa lagu xamanayay iyo waxbaa lagaa sheegay iyo waa lagu maagay iyo intaa uma baahni dheh. waxay idhaahdaan axad alculamaa ayaa ninuu yimi oo wuxuu yihi qoladii ninkii hebel ahaa wuu ku xamanayay, saasaa buu yidhaha orod iska tag buu ku yidhi. dabeetana hadiyad buu qaaday. hadiyaddii buu ninkii u geeyey bay yidhahdeen. wuxuu yidhi niyo hadiyadda baan kugu keenay. waxaanan kuugu keenay buu yidhi hadiyadda tan iyo xoolaha kan, waxaan u baahnaa baad isiisay, markaa waxaan rabaa inaan kuu abaalgudo. aakhri maalinta qiyaame la taagay dee ajar baan raadacaynayay, waxaanan maqlay inaad xasanaadkaagii wax iiga soo tuurtay. aakhire nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, nin walba inta la taago ayaa kaad cayday, kaad maagtay, kaad dishay, waxaad xasanaad lahayd oo dhan dadkaa loo qaybinaya. ilaa adaa afkaaga iyo gacantaada hayn waayey, waxaad salaad tukanaysa kusoo xeeqday oo dhan bal ka waran oo aakhiro rag kale la siiyo. waxaad xaj iyo salaad iyo soon soo samaysay iyo zaka iyo sadaqa aad la baxday oo adigoo soo taagan rag kale dareersadaan ka waran. qiyaamaha adigoo taagan oo baahan oo waxaad shaqaysatay rag loo raro, oo weliba marka loo raro qaar ay soo hadhaan le weli waxbaa lagu leeyahay ninka kan barh baa noo hadhay, oo la yidhaahdo culayska idin saaran iska soo reeba, haddaba ku rogo isaga, dunuubtoodii adiga lagugu rogo, adigoo xasanadiina kaa dhammaatay haddana culays kale lagugu sii rogo, waa dhib. waxaynu u baahanay inaynu salaamatu sadriga baranno. ilaahay markuu saxaabadii qur-aanka ku ammaanay, muhaajiriin iyo ansaarba, kuwa ka dambeeya wanaagga ku raacay waa kuwe والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهي وحليه سبحانه وتعالى الصحابة الدبدين كوا يجا قداشود يماده waxay ku leeyihiin waxa simta miskood iyo calaamadaha lagu yaqaan iyo sifaadkoodu wuxuu yahay inay leeyihiin ilaahu muuminiinta inaga horeysayna u naxariiso, laabtayadana qilli iyo xuma ha u gelinin kuwa mu'miniinta. ducadoodu waa taas baa la yidhi, ilaahu qoladii horena u naxariiso, laabtayaduna aanan kuwii hore colaad iyo balaayo u qaadin. waa aayaadka culammadu ay yidhaahdaan shiicadu way garab martay, waayo waxaa looga taaglaayay saxaabadii nebi maxamed inay caayaan ama maagaan. rabbanaa laa tuziq quluubana ayay garan kari waayeen. rabbanaa laa tajcal quluubana gilla liladiina aamanuu. dad badan oo maanta nooloo leh waxbaanu saxaynaana waa looga taagi waayey. waxaa looga taaglaayay mu'miniinta iyo muslimiinta inay nabadgeliyaan. waa kaafir iyo waa bidcoole iyo waa kan iyo waxan buu lahaado oo aan in badane ilaahay dartiiba ahayna ku fogeeya, iyo safka liita inaad ku darto iyo magac iyo maamuus inaad ka tirtirto ay tahay dantaad ka leedahay, xataa aanay in badane ahayn ilaahay dartii wax loo samaynayo. ikhwatii fi lcaqiida, saacaddii waktigii laysiiyey 2 daqiiqa ka dhiman. waxaan idinku soo koobaya
waxaa ka fakeraysaan inaynu heshiino siiba soomaaligu maanta heshiis waa u ooman yihi laakiin meel fog ha ka doonin agtaadu yaallaa heshiisku waa iyadoo laydinka helo dhaqan islaamiya haddaynu dhaqan islaamiyo saxa yeelanno waynu heshiinaynaa waxana aada fudaydsateen baa waxa isku keen diray ee xan leh ee nimiimnimo leh ee warxumo tashiil leh ee qoraal leh ee jariidad leh ee mujallad leh ee waxa la faafinaya ee t v leh ee qurun ee la soo daynayo waxaa isku keen diray dhaqankii islaamiga aynu diidannahay oo aynaynu isxidhiidhinno inaynu janaasadeenna wada tukanno inaynu israacno inaynu salaada isku qabsanno inaynu cibaadada wada samayno inaynu ilaahay darti ku walaalowno waxaa isku keen diraya waxa weeyaan aakhiraynu ilowna soomaalida waxay odhan jireen rag iska dhici iyo maxay iyo alla ka boqo ama cadaab ka dhowrso isku meel ma galaan bay odhan jireen war shaydaan iska dhiciya mid ka weyn qabaa'ilka is haysaan baa is haysaan oo ilaa nebi aadam aysa soo hayseen waxaynu u baahannahay xurgufta yare dhexdeenna taalla hadday xurgufi jirto inaad ogolaatid walaalaha muslimiinta kale inay ku dhexdhexaadiyaan inay wixii mushkiladee dhexdeenna yaalla xalliyaan inaynu dad walaaloo wada nool noqonno haddii taa la helo oo aynu mushkiladeenna xallilo macnaheedu waxa weeyaan xoog iyo xoolo iyo caqlaynu isku biirsanna waxaa u baahantihiin maanta cape town waxaa ka rabtaan oo dhan ba qaban kartaan hadduu yahay masaajid iyo hadday iskuulayin iyo hadday madaaris iyo waxa u baahantihiin waa qaban kartaan waxa hortaagani waa beheblaaye rag iska dhiciya inagaraw iyo waxaa la yidhi waxaan aada ula yaabay soomaalida dhibta haysata waa iyadii dagaalada soomaalidu cusbaayanaayeen meel yurubta ka mida joogay masaajid salaad kasta malaa markaan ka baxo ama jimco kasta saf baa cadhaysan safuufta igu daba tukataa waayo qola alle reerkaygii baa la laayay jimcaha kalena qaar kalaa cadhaysan bal adigu tukiyo wad dad maalin walba kooxi dudayso waa mid musiibo ah waxaan idin leeyahay waxaa idiin habboon inaad ilaahay ka cabsataan oo aa midowdaan oo islaax raadisaan wanaagga raadisaan wanaagga waa la beeraa waa wax la beerto inaad wanaagga dhexdiina beerataan wanaagga dhexdiina inaad beerataan soomaaligu waxbixinta kuma xuma ma aha dad maskax xun dadka soomaaliya waa dad jiinis ah intaan ka aqaano waa dad maskax badan mashaakilka soomaalida ugu badani waxa weeyaan waa laba shay waa dad sabir iyo dulqaad yar waa dad hadal badan labadaa masale haddaa xal u heshaan wax badan baa wada qabsan kartaa waa dulqaad iyo sabir yartiino eray yaroo la yidhi ayaabu dadka u kaga siinayaa haddaba waa naf dhan oo la gooyo ama nin dhan oo ilkaa laga rido ama qof dhan aad indhaa ka tuurto waxaa laga yaabaa waana cadhooday baa daba maxaa dhacay hal cayuu igu yidhi ama wax aan naf lahayn axadu taabiciina almukhadramiin nin ka mid ahaa waa yeeladii muslimiintu ay ka dambeyn jireen ka mid ahaa reerkoodana suldaan iyo caaqilo ahaa nin aada u caqli badanna ahaa axnaf ibnu qays la odhan jiray baa mid dabagalay baa la yidhi markaasuu caaye oo caaye oo caaye axnaf binu qaysna waxay idhahdaan waa nin 100,000 oo nin la cadhooto yani reeruu ka taliyo reer banu tamiim 100,000 oo nin oo seef sita goobta uu soo taagi karaa ninkan sidan loo caayaya wuu iska socday baa la yidhi kiibaa caydii ka dayn waayey waa geedkii reerkuu ku socdaa markaa majliskii buu tagay caayaya dee mid uun reerka ka mid oo wax magarataa burka ku boobi doono wuu dhiman doonaa markaa lafiisa ayaan loo dilin baan lahaa buu yidhi weli wuxuu laxajeclo ka qabaa ninkan caayayuu laxajeclo ka qabaa isaguu rabaa inaan la dilin soomaaligu laakiin hadduu laba damba ismariyaa taagan waxaa qudhaan idin leeyahay waxa weeyaan dulqaadka iyo sabirku ragannimadu ka mid iyo barta rag baa iska dhiciya ragannimada maaha ragannimadu waa inaad dulqaad iyo sabir leedahay ragannimadu waa in caqligu ku hogaamiyo ragannimadu waa inaad khayrka iyo sharka kala garan karayso islaaxu daati lbayn araadiceeya sala allahuma calaa nabiyi moxamed wcala alihi wasaxbihi waslem alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin